سيدات عيد صاحب الله يسفي عن ضوئي شعورتي أنا في عتاب ما شاء الله سلام تكبير حقيقة waxaan isleenahay waalidkayga inta la soo gaarsiiyay oo manaha aan ku faraxsanahay عيد وناكسن كنا سو دhow ay okay qofka jaamacada ku salaamto yaa niyada ku jira salaam والله حقا ما صلاة هذه أي مغالي نقرأ أفتاس وهذا معلم توتا سعودي سبحان الله ده نجمع أحمد عبدي المخلص صلاة كل الله صلاة ما شاء عيد وناكسن كوريسا عيد وناكسن عيد اوكي ما كان هذا كوشي انا عيد سلام يا سلام يا كل حبيبتي اوكي بحال هذا ورثه السلام عليكم عيد وناكسن كوريسا عيد وناكسن كل دمان مدة سوماليات مدة البلدان وعلي سلام يا ما دام عيدي دم عيد شلay marka sida waragtaa bismillah ya makoro ma san ala ya ma doonayso السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل كان وآيتين ميديا برودكشن عيد وناكسن عيد وناكسن عيد وناكسن كل عام وأنتم بخير وحين جوجنا دلك يوغندا عاصمة كمبالا وحين لا عيدنا دليرada iyo dadka Soomaaliyeed ee ku nool Kampala waxaynu la wadaagi doonaa farxadda ciidooda anagoo mid u ogaan doona siday u farxeen iyo waxa u dhaxeeya ciidihii hore iyo ciidan iyo waxyaabo badan oo maaragtay farxadda ku saabsan ayaad ku arki doontaan barnaamijka waxa kaamirada gadaasheeda inoo joogo walaalkeen Kinki Bashi oo ah photographyist aad iyo aad u khibrad badan anigoo sooraan yar ayaa barnaamijka idin soo jeedinay waad ku mahadsantihiin daawashada walaal ku soo dhawow Ayatin Media Production bismillah waa ku dhawahay Ayatin Media Production magacayga anigoo Cadnaan Cabdicasiis Muuse Cadnaan Kawlac ku magac dheer oo ku nool caasimada Kampala markuu wara ciid wanaagsan ku leeyahay wanaagsan oo aan maanta waxaan mikrofoon kala dhexmarayna dhalinyarada Kampala iyo waxaan noo kaga hadlaynaa ciidaha maanta maadaama ay tahay ciidii dadna ay ciideen shalay marka sidaad u aragtaa bismillah marka hore ciid wanaagsan ayaa dhamaan ummadda daawanayso marka xigta waa ku faraxsanahay inaan maanta ciidno maadaama wadankeena hooyo shalay laga ciiday anagana maanta inoo tahay maalin ciida marka aad ugu faraxsanaa waan iidnay laakiin si dhibaatooyin waa iska jiraan caabuq oo nagu reeb oo inaana la soo baashaali karin oo xaafadda la iskaga jiro labada qof oo saaxiibo ah markaas inay isla kulmaan marka waxaasna waa gudbinona doo caabuq dhamaad insha Allah marka waa dhawaah insha Allah waa mahadsantahay okay maanta hadaan Jaanis ku siiyo inaad maaragtay qof salaanto yaad salaami lahayd marka ugu horeyso marka familka laga yimaado marka familka laga yimaado waxa salaami lahay qofkii ugu qaali ah oo saaxiibana aan ahay Saciid saaxiibkii qaali ah marka waxa la ciid wanaagsan ma sha Allah Saciid waa maqlaysaa waan maleynaa waad mahadsantahay walaalkay waa mahadsantahay walaal adoo magacaaga ku bilaabay magacayga waa Akram waxaan ku noolahay magaalada Kampala caasimada Kampala maantana waa maalin ciida aadaan ugu faraxsanahay inaan ku ciido Kampala ciidani waa ciideedii labaad aan ku ciidayo Kampala ma sha Allah sidaad ugu ciiday si wanaagsan baa ugu ciiday ciidii hore ciidan way kaaga gedisan tahay ما شاء الله horta idii hore iidan ka dugan tahay because maxaa yeelay waxa jiro corona stay home marka gurigaas kaga ciideen insha Allah hadana yar saaxiibkay raba inaan soo booqdo idii hore iidan way ka dugan tahay idii hore meel badan aan soo booqanay jinja meel badan hadda meel kale ay qorsheysanayd laakiin maxaa la aadaayay xawaaye corona soo baxay marka waxaan u maleynayaa Jaanis badan waa weeysa Soomaa Jaanis badan waa waxyaabo waxta kale jira xataa jiraan oo xayirmeen okay Ramadan ayaa soo soonnay waana ka soo baxnay ducada Allah naga aqbal wixii naga aqbal maanta maxaad ku duceysan lahayd duceysa hadaa ku iraahdo wallahi horta dadka bini'aadanka waxyaabaha baahidooda lama soo koobi karo waxyaabo waxa jira baahi badan ay leeyihiin laakiin hadda anigu waxyaabo u baahanahay waxa jira waxyaabo ii qaas ah laakiin public ma ku fiicnaa waa gartay salaan hadaa ku iraahdo ama qolo salaan hadaa ku iraahdo yaa ugu horeeyay horta salaami lahayd familkaaga marka laga reebo horta qolo aan leeyahay fast adiga ka bilaabi lahay marna saaxiibkayga marna ay taageeraan ku ah YouTube-ka ka daawado mar waliba ya asxaabteeda Kampala ku nool ku Muqdisho ku nool dhamaantooda waa salaamaya waa mahadsan tahay ilaahay waxaan kuuga kaaga rajaynaynaa inuu muraadka Allah isaal ilaahay muraadkaaga ku sahlo iidan inay ku wanaagsanaato insha Allah ta'ala waa mahadsan tahay ku soo dhawow Ayatin Media Production walaalkay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ku dhawahay barnaamijkan Ayatin Media waan u jeedaa maanta aad u faraxsantahay walaalkay ciid wanaagsan marka ugu horeyso ciid wanaagsan dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogtaan waan salaamayaa marka hore okay ciida sidaad u aragtaa ma dadkii shalay ciiday mise dadka maanta ciiday intaba
waxaa ka mid ah anigoo magacay ka bilaabaya magacayga Ibrahanad oo dadka maanta ciidaha ka mid ah. maasha Allah. Okay, haddii aan ku iraahdo salaan dad marka faamilkaaga laga reebay yaad salaami lahayd khaas? waxaa salaamaya dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel walba ay joogaan iyo ITM Media. waa mahadsan tahay. su'aal haddii aan ku weydiiyo ciidan iyo ciidaha hore maxay ka bedelantahay? wallaahi in badan wax badan bay iska duwan yihiin maadaama meel lagu tukada aansan lahayn iyo meelo qaar oo la tagi karin oo barnaamijyada wax walba ka qabsan lahayd laakiin hadda waxa waay gurigaaga la ku tuko wax walba gurigaaga ku qabsan lahayd. waa mahadsan tahay walaalkay. ciid wanaagsan ciid la mid ah. ku soo dhawow ITN Media Production walaalkay marka ugu horeyso. maasha Allah aadaan ugu dhawahay marka ugu horeyso ITN Media. waa gartay magacaaga ku bilow. magacayga Saciid Maxamuud oo ku macariir Saciid Aqyaar. maasha Allah. horta marka ugu horeyso waa maalmo ciidan ku jirnaa. marka ugu horeyso waxaan ku leeyahay horta ciid wanaagsan. ciid mubaarak. Okay, sidaad u aragtaa ciidda maanta iyo ciidihii hore? maasha Allah runaantii ciidihii hore ciidda maanta aad bay u kala duwan yihiin waayo waxaan ku jirnaa waqti bandow ah. waa markii ugu horeysay aan ku ciiday magaalada Kampala laakiin waxaa la kulmay bandow saaka waxaan ku dukanay guryaheena awal waxaan ku dukan jirnay masaajidada asxaabta familiga farxad badan qaadan jirnay laakiin ciidihii hore aad bay ugu duwan tahay. maasha Allah. haddii aan ku iraahdo dad salaan marka laga tago ehelkaaga iyo faamilkaaga yaad ugu horeeyay salaami lahayd? horta marka ugu horeyso horta haddii taas aanoo dib dhacda laakiin waxaa aad u salaamayaa familkayga aan aad u jeclahay asxaabteyda meel walba dunida ku nool yihiin aad baan u salaamayaa khaasatan ummadda muslimiinta dhan aad baan u salaamayaa khaasatan Soomaalida. waa mahadsan tahay. intaa Kampala joogtay maxaa kugu la yaabka badnaa? wallaahi intaan Kampala joogay waxaa igu la yaabka badnaa saas uma xasuusto laakiin wax la yaab maadan la kulmin. waa nabad qabtaa? waa nabad qabaa maasha Allah. maasha Allah. waa ku salaamayna anagana ciid wanaagsan ciid mubaarak maadaanu nahay bahda ITN Media Production. sidoo kale ciid mubaarak aad u mahadsantihiin. soo dhawow ITN Media Production. oo ku dhawaad aad. Okay, magacaaga? magacayga Maxamed Cabdi Cilmi. Okay, horta magaca ugu horeyso hadaynu nahay bahda ITN Media Production waxaanu ku leenahay ciid wanaagsan. oo wacan. Okay, waxaan ku weydiinayaa dhowr su'aaladood. marka ugu horeyso ciidan iyo ciidihii kale ka waran bal? wallaahi ciidan iyo ciidihii hore waa kaafi kala dheeri oo farqi weyn u dhaxeeya. waa gartay. marka maxay tahay farqigaas leedahay u dhaxeeya ahaantaada? ciidihii hore damaashaad iyo asxaabtooda la baashaalo iyo magaalada shidan ajirta laakiin ciidani karantiya uu lagu jiraa guriga raafin barnaamij leeyahay. Okay, waxaan soo dhameystay bishii barakasneed ee Ramadaanka. waxaan u joognaa ciid haddaan ku iraahdo oo lagu siiyo mikrofoonka ee lagu raacid salaam cid ugu horeyso salaami lahayd? wallaahi salaamtu waa badan tahay oo haddii wax salaan la yiraahdo lama soo koobi karo laakiin markii laba loo kala qaado mar waxaan salaami lahaa dhammaan ummadda islaamka ah intii soontay marka koowaad marka xigtana waxaan salaami lahaa qof aad iyo aad igu qaali ah Faisal Saciid Tiri. maasha Allah. Faisal waxaan leenahay aad baan ku salaameynaa. ciid wanaagsan. ciid wanaagsan oo wacan. ciid wanaagsan marka ugu horeysa wiilkayga ciid wanaagsan. ciid la mid ah. Okay, magaca? Maxamed Xasan. Okay, maanta ma ciide? ha maasha Allah. ciidihii hore ciidan ka waran bal? isku mid maahan. taa jeclaan lahayd taa ku fiicnayd? kuwii hore. Okay, kuwii hore maxaa ku jeclaatay tan ku diidanay? tan waa xanuun jira kuwii hore xanuun ma jirin. Okay, halkan haddaan ku siiyo inaad cid salaantay yaad salaami lahayd? hooyaday aabahey. yaa kale ku xigo? habeerti. Okay, maxaa leedahay habeertaa? og salaam awdeela. Maxamed, hooyi aaba magacood? Canab Xasan Axmed iyo Canab Maxamed. maasha Allah. hooyana habeerna? habeera Fartuun Maxamed. si fiican baa u salaamaysaa soo maaha? ciid wanaagsan yahay maan insha Allah. ciid wanaagsan kuna soo dhawow ITN Media Production. ciid wanaagsan baa ku leeyahay ku soo dhawahay walaal. Okay, magacaaga? Sharmaake Cabdi Cali. Okay, Sharmaake marka ugu horeyso horta iyo mar labaadba iyo mar saddexaadba ciid wanaagsan. waxaan ku leeyahay ciid wanaagsan waa antu bil khayr. Okay, antu bil khayr. كل عام وأنتم بالخير. وأنتم بخير. أوكي. كورن بالعيدان عيديه هره. والله عيدان waxaan dhihi karaa ani kulba waa ciid igu xumayd. sababtoo ah ciidahaygaas ciidda kale Soomaaliya joogay waa iska soo baashaaliyay laakiin ciidan Uganda ugu qabsadeen inuu iska joogo marna beerta boqorka laga soo ceyrsado. wax ka xunaay taas marka wallahi ciidan waa ciidii ugu xumaa ka mid tahay. Okay, hadii aan wax kale ku weydiiyo maanta maadaama aan ku jirno maalmihii farxadda ciida maalmihii ugu horeeyay waliba Soomaa. Okay. qof haddaan jaanis ku sii in aasalaanto
yaa niyadaada ku jiro salaami lahayd والله حقان waxaan salaami lahaa qof aad ugu qaaliya ma garatay qoftaas oo hadda macnaheedu joogta Sweden waxaana la dhahaa Najma Ahmed Abdi hadii ay maqlayso salaan kaliya laba salaamiya ma sha Allah Najma waa maqlaysaa barnaamijkan waa barnaamijkii ciida ninka nala joogana waa taqaanaa ugu turjumay marka waxaan jeclaan lahayn inaad subscribe noo saarto maadaama ninkan ku keenay maanta diyaar weeyso okay su'aal kale rabina ku weydiiyo oo iska caadi ah okay hadii aan garanayo ka jawaabiyo okay intu ilaahay abuuray qofka ugu cimriga dheer ma taqaanaa intu ilaahay abuuray macnaha adoomada ilaahay qofka ugu cimriga dheer nabi aadam maxaa tirku su'aali wallahi hada isku dayo maxaa tiri qofka adoomaha ilaahay qofka ugu cimriga dheer qofka ugu cimriga dheer qofka ugu dambeeyo wallahi shaasha ma garanayo okay waxaan ku leeyahay mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad mar shanaad ciid wanaagsan okay ciid wanaagsan baa ku leeyahay ciid wanaagsan kuna soo dhawow ayatin media production walaal ku dhawahay ciid lameent okay magacaaga magaciga Cabdullah Wadonka ku macdheeray okay maantay waan ciidnay waxaanu soo gudanay waajibaadkii bisha Ramadaanka xilliyada ciidan ku jirnaa okay ka warran bal ciidan wallahi ciidan horta ciidada kale waa ku duwan tahay sida kalena waa ummad Soomaaliyeedna gaar ahaan waa saameynaysa sida u saameynaysa waxay tahay macnaha dadkii xawaaladii meelihii badnaa ku iidlayeen wax ku soo gadalaayeen waa ka xirin sida kalena maxaa la hayay isheeg qofkii u baahnaa emergency degdeg ah oo macnaha inuu u laabto wadankiisa aan u laabi karin taas dhibka haysan Soomaaliya gaar ahaan taas waa insha Allah taala ciidan ma kugu horeysa ciidan kabaarku iiday ciidan kabaarku iiday okay maadaama soo gudana bisha barakeysan ee Ramadaanka aynu ku jirno maalmihii ciida ee farxadda maxaad ii sheeg yaad salaami lahayd qof salaan hadaa ku iraahdo xaqiiqatan waxaan salaami lahaa waalidkayga intaan soo gaarsiiyay oo macnaha aan ku faraxsanahay amro buu duceeyo asaan salaamay ma sha Allah okay walaalkay soo dhawow waana mahadsantahay okay soo dhawow ku soo dhawow ayatin media production waa dhawaad saaxiib maasanid okay magacaaga saaxiib magacayga Sharmaake waxaan ku jirnaa maalmihii barakeysanayay ciida okay marka sideed ciide saaxiib wallahi si fiican baa u ciidnay shucuurteedana aad u fiican tahay ما شاء الله هذا ما أنت جالس على الميكروفون كوسيو أو كيراد قف سلام قف أقول وقالسن والله هرتو مركو كباد وحن سلام الله هو يدي معان مركو لبعض وحن سلام الله صاحب ذا يعني يقول سوغان وزن كان يعني مدود درس مغني أوكي وما حسنت هاي وأنا كسر ويننا نجنا عيد مناكسن عيد مبارك عيد مبارك صاحب وتكون حسنتين دعوة برنامج كنا هل كان مرلبات إمسد حد وحنا إذا كان لنا هاي daawadayaasheenna iyo daawadayaashooda saaxiibadan iyo saaxiibadooda intaba iyo dhammaan Soomaalida meel walba dunida duwaafada ay ka joogaan ciid wanaagsan ciid mubaarak waxa kaamirada gadaasheeda idinoo joogno walaalkeen Kinki Baashi oo ku takhasusay oo ah photographyist aad iyo aad u xirfad badan aniga oo ah Sooraanyare ayaa barnaamijka idin soo jeedinay mar saddexaad mar afraad mar shanaad waxaan idin leeyahay ciid wanaagsan ciid mubaarak fadlan haddii aad nagu cusub tahay subscribe saar like ta share wixii comment ama oraah ama eray tala bixin ahna barta commentiga noogu soo dira waad mahadsantihiin mar labaad iyo saddexaad